kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartu daawanaysa meel walba joogtaan iyo goor walba iyo xil walba idin tahay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ayaa idin leeyahay anigoo ah saaxiibkiin halkan ka saaxiibteen ee Doobiya Media nagala soo hadlo ee Mustafa Maxamed isla markaasina ku soo baahiyo dalkaada hooyo waxyaabaha ka jira ee siyaasadda qodobada aan isleeyahay bulshada way xiiso gelinayaan balse aan ku yara xasuusiyo boqoshadaada koowaad ee channelkeena ee Doobiya Media YouTube-ka dul imaad subscribe-ka inoo saaran fadlan calaamad gudoota subscribe taa gambeelka fursi ama macaamiil joogto u noqon like-tana dhiirigelin ayay inoo tahay taliya aragtidaana comment nagu soo gudbi sidoo kale barteena Facebook ee Doobiya Media boqoshada koowaad ee taafalowna soo dheh hadday tahay markii ugu horeysa aan soo booqataana falowna soo dhihin sidoo kalena videoga like saar asxaabtaadana usii sheergalay aragtidaadana commentiga nagula soo wadaagi kartaa haddii intaasi aan kasoo gudubno qodobada aan idiin wadan waxaa ka mid ah culammada Soomaaliyeed oo ka mid yahay Sheekh Usuli iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Idriis ayaa maanta sheegeen inaan mar kale dib aan loo dooran madaxdii dalka sida Farmaajo iyo sidoo kalena taliyihii hore Nisa Fahad Yaasiin maadaama amniga ku fashilmeen xildhibaan Aamino iyo nabadoonkeedii oo baladweyne qarax lagu dilay maanta Muqdisho aas loogu sameeyay warbixin la xiriirto ayaa idiin soo gudbin doonaa qodobkaasi ayaana falanqeyn doonaa haddii weybaha awoodda lehayno ogolaada balse adiga ay daawanayo u diyaar garooba ayagoo dhammaystiran waa tahay haddii aanu ku bilaawno sida la ogsoon yahay dalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeysay waxaa ka dhacayay weeraro iyo qaraxyo iyo dilil qorsheysan isla markaasi 5 sano ee Farmaajo afarta sharciga iyo muddada sanadka oo sida sharci darrada fila Soomaaliya ku dhex fadhiyay waxa ahayd mid ay amni darrada sii kordhisay iyadoo qaladaanta ay sii muujinayaan qabaha kala duwan ee bulshada waxaana jirtay fal dhacdadii ugu dambeeyay kuwa laga galaangishto maanta magaalada si baladweyne qaraxii ka dhacay ayaa laga hadlay culimada Soomaaliyeed Sheekh Usuli oo ka mid yahay isla markaasina si weyn bulshada Soomaaliyeed magac ugu dhaxlay faafinta diinta Islaamkana iyo waliba mas'alooyinka arrimaha xaqiiqda ka jirta la weydiiyo ka jawaabo ayaa waxa uu ka hadlay arrinta siyaasadeed ee dalka jirtay qaraxii lagu dilay Aamin ka tirsanaa jirtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina si weyn ahayd qof bulshada geerideeda qaraxii lagu dilay ee ugu galaangalato Sheekh Usuli ayaa waxa uu sheegay in madaxdii dalka ee soo martay gaar ahaan kuwa hadda xilka uu ka dhamaaday ee ugu dambeeyay inay amniga ku fashilmeen ama mar kale dib aan loo dooranin Sheekh Usuli arrimahaas ka hadlayna waa kan walaarka kuwan baarlamaaniyiinta waxa leeyahay war Ilaahay ka cabsada nin dambi kale in la soo celiyo ma aha oo Ilaahay ka cabsada ku horta dhiig hadda daadana baarlamaanka hore loo haasta gudoomiye baarlamaanka iyo kii hore iyo ku-xigeenkiisa kulligood waa loo Ilaahay weydiinay maxaa dhacay wadanka iyaga halkan soo gaarsiin maxaa dhacay ummadda taladoodii way diideen waxay diideen xaqay diideen gacantooda iyo jaabka wax loogu shubay ogolaadeen waa sacbiyeen baarlamaan sacbinay naqdeen maanta soo gaar ka soo socdana saasa la rabaa ummad waxa la rabaa sidii dacayda loo hogaaminaa ummadda markii leaderkii ninka xaq sheegay laga dilo oo ummadda in la doonsan rabo waxa la rabaa ummad hoggaansamayso cabsanayso wallahi Soomaaliya saas gumaysi ku hayn waay shan loo qaybi hal xataa wax xukumi waay maadiga afar qof aad dish in lagaaga aamusamad dhiiga gasho ku yaala meel baarlamaanka hore oo noo soo naqday nin dambi kale in la soo celiyo ma aha nin dambi kale maxaa soo ceshanaysa maxaa taageeraysa dhaalim Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka waa noogu sheegay wuxuu ku leeyahay waa la soo saara dadka dhaalimiinta dadkaas la soo saara ninkii raqni la sameeyay asarku lil ladina zalamu sama fatamsukum al'adab عذاب إلهي سبحانه وتعالى يتابعني شعبي قواس كاموسية ما نكس قفة الدين والأوينية آوي كي مسؤول كولي مسؤول النوية هاي كي كلا وحنك وحكي قبنا ملا وكأن سذيع ما نكس تأدد إن قفل الدين أهرال أقول كرت آموس كرتان وهذا هو حل ليه مركا دورش على قلة وعلى صون قناة إلهي نقص علي ظالمين إلهي نقص عليه sidoo kalena waxaa ka mid ahaa culimada isla markaasina arintaasi si weyn uga hadashay Sheekh Maxamed Idriis oo sheegay in dilkii xildhibaan Aamino uu ahaa mid musiibo isla markaasina ummadda indhaha laga ridayo wuxuuna sidoo kale ku dheeraaday ka hadalka fashilka amniga ee dalka ka jiro oo sheegay in ay tahay mid ay dhibaatadaasi hay'adaha amniga mas'uuliyadda qaadanaya wixii ka dhashay wuxuuna sidoo kale soo hadal qaaday in dowladda markii ay rabto ciidamada ay wax ku weerarayso ay adeegsato balse markii amnigana ay lagu soo lahaay ay dib u dhiganayso dowladda federaalka xil baa saaran aaway ciidamadii aad soo tababarteen أو عيدمada mucaarad ku cabsiinayseen أو عيدمada lahideen darab iyo haramcad
iyo gorgor iyo maxaan ku dhahay isha kobra aawe billahi calaykum dadka marka shabaab laga celinayo ma la waayayaa marka iyaga loo xoog sheeganayana ma la helayaa yay ciidamo u yihiin nooca hadday yihiin 5 sano maxaa laga shaqaynayay eeraboorka daraad la galay maxaa lagu galay maxaq baa eeraboorka haddii la galay madaxweynuhu aamin ma yahay ra'iisul wasaaruhu aamin ma yahay saraakiishu aamin ma yihiin ummaddii waa dayacdeen idinku lafiin horta ilaashada sidoo kalena sheekh maxamed idriis wuxuu sheegay in mas-uulka imaanaya loo baahan yahay inuu ahaado mid ummadda amnigeeda damaana qaadayo iyo sidoo kalena la dagaalamayo kooxaha argixisada ee dhibaatada ku haya soomaaliya ee maleeshiyadaasi ee shabaabka ah. sidoo kalena wuxuu sheegay kaasi in la keeno balse ma ahan in ay kuwa la shaqaysto marka la soo celiyo. adeerow siyaasiga loo baahan yahay maalinka maanta ah waa siyaasi waddankaas amni ka dhigi karo shabaab ka celin kara dadka wax kale isku daalanina ninkaas ragga ah baan rag u naqaanaa kaasaa noo siyaasi ah kaasaa noo madax ah nin ku fashilmay ama la shaqaysta noomaha nin matala soomaaliya haddaba maqla qofkaan dhiiggeenna badbaadin karin oo cadowga waxa weeye isaga daraaddii u socda annaga nagu laynaya aan naga celin karaynin nama matalo inamana matali doono taa macnaheedu maaha dowladda lagu baxo laakiin taa macnaheedu waa maxay dowladdu xilkeeda ha gudato. culamadaani hadalka ka soo baxay maanta islamarkaasina sheekh usuli iyo sidoo kale sheekh maxamed idriis ayaa wuxuu imaanayaa xilli amniga dalka ee quus laga sii taagan yahay. isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho qabuuro ku yaallo ayaa lagu duugay xildhibaan aamino iyo sidoo kale nabadoonkeeda beledweyne lagu qarxiyey iyo dad kale islamarkaasina qarxiyo saxiiga ka dhacay ee u geeriyootay shalay oo magaalada muqdisho lasoo keenay oo janaasadii lagu dukaday balse maanta ayaa si wada jir ah waxa ay lagu kala duugay qabuuro ku yaallo isbitaalka xoogga waxaana kasoo qayb gala madax ka tirsan dowladda soomaaliya iyo sidoo kale eheladeedii qaar ka mid ah dad shacaba iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada. qaar ka mid a dadkii kasoo qayb gala aaska oo si weyn u garay aqaan ee xildhibaan aamino ayaa waxa ay ka warbixiyeen intay ka yaqaaniin. dhammaan ahalka iyo ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanadaas oo qof mas-uul ahayd intii asxaabta ahayd ay is yaqiineen iyo intii ay soo wada shaqeeyeen waxaan leeyahay dhammaan sabar iyo iimaan allah ka siiyo ahalka iyo qaraabada ana waxaan ilaahay uu baryaa in uu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo waa inaga wada geeriyootay tahay guud ahaana akhyaartu aan jeclahayow tan iyo mar kale intaan kulmi doonno waxaa idiga tegayaa sidaas iyo nabaddiin iyo kulan kale oo xiiso leh.